Assalaamu calaykum kusoo dhawaada kanaalka tarjumaad. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso ah wiilkan wuxuu damcay gabadhan si uu u helo inuu u isticmaalo sixir. Dhibaato fara badanna ayuuna u geystay, laakiin markii dambe ciqaabtiisa ayuu maray. Ka hor intaynan qisadan bilaabin, ka mid noqo asxaabta ku xiran kanaalkan. Waxaa jirtay gabar jaamiciyad ah oo aad iyo aad u qurux badan. Aabaheedana wuxuu ahaa maalqabeen caan ah, wuxuu lahaa warshado iyo shirkado aad u fara badan. Gabadhan quruxdeeda dhalinyarada oo dhan waa ay la dhacsanaayeen, laakiin nasiibkeeda wuxuu noqday inuu ka helay wiil faqiir ah oo aabaheeda u shaqaynayay, xisaabiyana u ahaa. Nafsadiisa ayaa waxay u qurxisay inuu helo gabadhan uuna guursado dhibaato walba ha ka maree. Laakiin wuu ogaa inuu ku fashilmayo oona ku guuldareysanayo haddii uu doonto gabadhan. Laakiin wuxuu isticmaalay waddo shaydaannimo ah si uu u helo gabadhan. Wuxuu qaaday waddadii sixirka. Wuxuu bilaabay inuu la macaamilo uuna ku noqnoqdo saaxiriinta iyo beenaalayaalka, iyo inuu soo iibsaday buugaagta sixirka. Muddo kooban ayuuna ku bartay waddooyinka sixirka. Kadib si degdeg ayuu u bilaabay inuu ku fuliyo gabadhii jaamiciyadda ahayd oo aadka u quruxda badnayd. Gabadhii waxay bilowday inay wax badan hurdayso, waxayna dareemaysaa wahsi, caajis iyo daal fara badan. Wejigeeda waa uu isbedelay, miisaankeeda waa uu nuqsaamay. Marar badan oo lasoo doontayna guurkeeda waa lagu guuldaraystay sabab la'aan. Calaamadahaas markii ay ka soo muuqdeen, aabaheeda wuxuu ugu yeeray dhaqaatiirta ugu caansan si ay xaaladeeda ula tacaalaan, laakiin waxba isma bedelin. Xisaabiyihii maski ahaa wuxuu bilaabay inuu reerka u soo dhowaado asagoo sheeganaya inuu sixirka daweeyo. Wuxuu bilaabay waraaqado uu wax ku soo qoray iyo kuwo uu wax ku soo akhriyay inuu biyaha ugu daro ay cabto, qaar kalena ay korka marsato, ilaa midabkeeda uu isbedelay. Waxay u ekaatay sida daanyeerkii oo kale. Timihu waa ay ka daateen, karka ka soo baxaya dhididkeeda waa uu isbedelay, midabka wejigeeda waa uu doorsoomay, xaaladina waa ay uga sii dartay. Ayadoo xaaladeeda ay sidaa tahay, waxaa timid mid ka mid a gabdhaha saaxiibadeeda ah. Waxay ka timid safar oo sanado badan qaatay. Xaaladeeda markii ay maqashayna waa ay soo booqatay, waxayna ku akhrisay aayado qur'aan oo suuratu baqara iyo suuratu saafaat iyo mu'minuun iyo yaasiin, iyo ruqyatu sharciya ay ugu tuftay biyo ay cabto, kuwo kalena ay ku qubaysato meelaan musqusha ahayn. Waxay u dardaarantay inay akhriso qur'aanka, khaasatan suuratul baqara, iyo inay xifdiso ay ku dadaasho adkaara sabaax wal masaa, subaxii iyo galabtii ay akhriso, allana ay ugu dhowaato salaatul leyl. Gabadhii sidii dardaaranka ahaa ayay fulisay. Ilaahay fadligiisana 2 maalin kadib waa ay caafimaaday. Xaaladeeda sideedii hore iyo nashaadkeeda iyo firfircoonideedii ayay ku soo laabatay. Maalinkaas laga bilaabana waxay noqotay mid ku dadaasha salaada, qur'aan akhriska, iyo adkaarta iyo axaadiista rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Dhanka kale, saaxirkii maska ahaa waxaa lagu ogaaday inuu sameeyey xatooyo oo shirkadda uu lacago fara badan uu ka xaday. Waxaana loo sheegay booliiska, waana la xiray, xabsiga ayuu galay si ciqaabtiisa uu u maro.